Cristiano Ronaldo oo mar kale isku qoray buugga taariikhda kubadda cagta ee caalamka. Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa mar kale isku qoray buug cusub oo taariikh kubadda cagta ah isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee gaaray 940 gool oo rasmi ah xirfadiisa ciyaareed. asxaabta ciyaaraha jecel fadlan waxaan iga codsanaynaa muuqaalka like noo saartaan, subscribe noo saar, jambalalka furo si joogto u hesho warbixinadeena taxanaha ee ciyaaraha ku saabsan iyo falaqeynta. waan ku bilaabo wararkeena ugu xiisaha badan waxaan maanta falaqeyn doonaa xiddiga Cristiano Ronaldo oo taariikh cajiib ah dhigay. Ronaldo ayaa record oo gaaray maanta oo dhaliyay xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa mar kale isku qoray buug cusub oo taariikh kubadda cagta ah isagoo noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee gaaray 940 gool oo rasmi ah xirfadiisa ciyaareed. Ronaldo ayaa recordkan gaaray kadib markii uu shabaqa gaaray ciyaartii furitaanka ee horyaalka Sacuudiga ee kooxdiisa Al Nassr ay la ciyaarayeen Al Hilal deeqadii 54 inkastoo uu 40 sano jiro. Ronaldo weli wuxuu muujinayaa awood aan caadi ahayn iyo joogteyn ciyaareed oo aan laga helin taariikhda badankeed badana lama helo macnaha nin saas macnaha bulan u dheelay. tirada 940 gool ee Ronaldo waxay u talaliyay intii uu joogay kooxahan xilli ciyaareedkiisa u horeysay wuxuu soo bilaabay soo daayir ah Sporting Lisbon ayuu soo bilaabay kadib Manchester United ayuu imaaday. waa taariikh cajiib ayuu dhigay, waa tii uu ku guuleystay Champions League 2008 wuxuuna qaaday Ballon d'Or isla sanadkaas ay ku guuleystay. sidoo kale haddana wuxuu u guuray Real Madrid haddana Champions League kaaw badan oo la qaaday, Ballon d'Or badan oo ku guuleystay. sidoo kale Juventus ayuu u wareegay, Juventus kadib wuxuu u wareegay Al Nassr oo hadda u joogo iyo xulka qaranka Portugal ayuu dhammaan intaas goolashaas isku wada jir ahaan macnaha intaas kooxood 4 kooxood oo reer Yurub ah iyo hal koox oo Carabta Sacuudi Carabiya. 5 kooxood ayuu naadi ahaan soo maray iyo xulka qaranka iyo intaas u dhisay 940 gool. waa gool aad u badan marka taasna taariikh ayuu cajiibkan ayuu dhigay ninka Cristiano Ronaldo ah. sidoo kale Ronaldo wuxuu tusaale u yahay in isku darka cimri dheer iyo heer ciyaareed joogta macnaha waa ciyaartoy badan qaarkood marka dadka gaaraan cimri dheer badan qaar lama helaan marka cimri dheertaas iyo heer ciyaareed joogta ah oo nadiif iyo naadir ku ah kubadda cagta ayuu isku helay. haddana waxaa laga yaabaa xilli ciyaareedkiisa inuu gaaro kunka uu gaaro 60 gool bas ka dhiman inuu xiro 60 gool ay ka dhiman ka badan ayuu sii dhalin karaa hadduu sii dheelo intaas xilli ciyaareedka 60 gool uu sii dhalin karaa sida la rajeynayo. asagana wuxuu rabaa inuu taariikhda recordkan uu sii dheereysto uu goolashiisa sii wato hadda dhunta xulka iyo sidoo kale kooxda Al Nassr ama kooxaha kale hadda u dheelayo. sidoo kale World Cup uu soo dhow yahay, waxyaabahaas oo dhan ayuu rabaa inuu isku darsado taariikhdiisa oo cajiibka ah oo sii wato. fadlan haddii intaas soo gaarto muuqaalka waxaan ka codsan like noo saar, subscribe noo saar, muuqaalka noo sheegay waana maasantiin insha Allah. sidoo kale waxaan soo wadaa wararkii u dambeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo sidoo kale isbuucan ee Premier League ee horyaalka Premier League ee kooxaha dheelayo ilaa Super Sunday ee Arsenal iyo Liverpool. waxaas oo dhan muuqaalka xiga ayaan ku soo falaqeyn doonaa. wixii ra'yigaada qaybta comment inuu soo qoro walaalkiin Maxamed Daacad. sidaas iyo nabadgelyo.